bismillaahi raxmaani raxiim casharkeena maanta waxaa weeye sidii xog looga masixi lahaa tabilkan SQL kanaga isticmaali doona MVC5 haddaynu projectkeena bilaabano oo ku darsanayna qaybtii deletingka home controllerka inta ki doonaa waxaynu ku darsan doonaa action kaasoo inoo noqon doona inoo haysan doona http get kaasoo inaga caawin doona ama inoo diyaarinaya daytada loo diyaar gareeyay in la masaxo la soo akhrinaya una diyaar gareynaya in la delete gareeyo iyadoo lagu waxaynayo ID string ID qofka ID-giisa la helo in la soo akhriyo waxaan dhihi doonaa return view action keena waxaan la baxnay delete okay waxaanu isticmaali doonaa kii hore ay noo samayn jiray soo akhritaanka oo ahaa diyaarin methodkii noo jiray inoogu dhex jiray db connect classkii noo ahaan jiray report diyaarin baynu dhahaynaa waxaynu dhiibi doonaa ID oo variable-kana kor ku magacaabanay ah string-ka ah sh taas baynu dhex gelin doonaa return view si inoogu soo celiyo wixii la soo akhrinayay inoo build gare control shift b na waa taaban kartaa succeeded wuu inoo fuliyay okay add view baynu ku daraynaa view waxaynu siinaa temporary la yiraahdo delete model classka uu ka soo akhrisanayo waa keeni caadayno ahayd ee astaamo ahaa property-gan inoo hayay layout-kan click baynu saaraynaa okay wuu inoo sameeyey waxaynu siinaynaa haddaba ID-gaynu ka bedeli doonaa siduu u qoran yahay waa case sensitive C# code-keena soo haystay weeye okay waynu debug gareyn doonaa okay waxaynu eegi doonaa inuu inoo soo akhriyo horta wuu inoo soo akhriyay laakiin ma fulinayo ma delete garanayo iminka KTP connection karina tag waxaan diyaarsana codekii deletingka inoo sameyn lahaa insha allah waxaynu la baxaynaa internal void magac baynu bixin doonaa oo ah delete kan waxaynu hayn doonaa astaamo oo ah classkii property-ga inoo hayay variable baynu dhiibanay okay SQL command-ka baynu bilaabanaa kaasoo inoo soo bandhigayay codeka SQL-ka inoogu dhex qornaa SQL command waxaan dhahi doonaa delete bay kanu isticmaalanaa inuu waxii masaxo laynoo soo diyaar gareeyay waa delete from tableka laga masaxayo waa keeni hore ee ahaa alaabo SQL-ka inoogu samaysnaa to suusan dhammaan inooga wada masixin wayna ku xidhnaa where condition where ID-gu la mid yahay kan clickta la siiyo een dooranay okay parametradan u yeelan doonaa command oo inoo hayo code keenan delete-ka parameters.add value ID-gaasna u yeelan doonaa xagee uu ka soo akhrisanayaa wuxuu ka soo akhrisanayaa astaamiheenii inoo jiray field-ka ah ID okay waxaynu samaysan doonaa execution-keeni samaysan doonaa inagoo connection-ka furan doona connection.open okay execution-ka sameynaa command.execution code-keenan delete-ka inuu execute garee okay connection-keena soo xidhi doonaa halkaa waxaynu ku qabanay keeni inoo sameynayay failka oo deletingka inoo sameynayay inoogana masaxaya table-keena database-ka inoo dhex yaala home control ku noqon doonaa
isna action baynu samayn doonaa kaasoo fulinti ah inuu fuliyo wax oo delete gareeyo kana delete gareeyo table-kan SQL-ka waynu isku magac yihiin keen hore inuu soo bandhigay waa waajib waxaanu yeelan doonaa class-keeni astaamo ast ama astaamo la baxaynaaba variable-ka hadda ka dhigan doonta okay if model state is not valid okay first fafran doona halkaas aynu dhex dhigan doonaa code-keeni okay waxaynu hay kirbo .delete method-kan imka soo samaysanay astaamo oo variable-kan kor ku magacaabanay okay markuu fulitaan ku dhaco meesha uu aadayo already automatically wuxuu aadaya kiinaga inuu ahaa liiska inoo soo bandhigayay wixii liiska inoo diiwaan gashanaa casaankaas uga qaado return view indhahayna okay aynu billi garaysano one succeeded wuu fuliyey okay inoo refresh garee okay aynu tijaabino click delete ambitious between the following labadan action ayaa isku wax qabanay labadu http get ka dhignay wayna kala soconaa kan http post ka dhignaa imika inoo billi garee way waxaan wax ka fulinay waa kaas okay imika I think wuu ka qaadaya waynu refresh gareynay okay delete imika wuu soo akhriyay okay delete baynu automatically wuu masaxay qofkii okay ka labadan ku eegno delete okay total bay noo la socdo oo soo madhigayay wixii sugeyntii oo inaga mika faa'iido inoo lahayn waan ka saareynaa xilliga selection-ka baynu baahanahay delete-kan tagayna feed-ka wax soo akhrinaya soo celinaya baynu ka saareynaa meesha ka dd-da iyo ka dt-da wada labada naga saar okay save kare waayo HTML code okay kaaminka delete hada dhahana uu fulinaya hal wax bayna uga hadhay oo laptop-kaya okay class-in ku darsan doonaa insha Allah waxay tagnaa key-list-ka waxbaynu ka bedelaynaa automatically soo class-ka uu qaato waa inaan sheegnaa folder-ka wax ka soo akhrisanaya okay controller-ka ah inuu nahay magaciisu ahaa home inuu soo koobiye inuu daba dhig lasku folder bay isticmaalayaan kana sidoo kale okay inoo save kare okay horta waxaan ku darsanaa styliski qaabku muuqan lahaa already kan waa edit class baynu soo yeelanaa class-ka waxay inooga dhigtaa badhan ahaan oo dhaqmo waxaan dhahaynaa btn oo batana btn iyo siduu ekaanayay oo ah waa edit warning si digniin oo kale ah u ekaado oo kalarka yellowga ama huruud ah okay inoo soo koobi kare kuwan kalena inoo daba dhig insha Allah okay kan kalena inoo daba dhig laba say u ekaanayaan aan ka bedelno imika kan detailska waxaad inooga dhigtaa already primary oo blue ah okay kan kalena already waa delete waxaynu ka dhigan doonaa danger waa xasaana yacni wax khatar ku ah weeye okay wuu inoo bedelay okay back to list edit kana in ka bedelo wixii class-ka ah okay edit event tagana okay folder-ka ku dhex jiro
editku ama kan liiska inoo soo bandhigayay home buu ahaa. Classkii baynu siinaynaa isaga waxay nagu daysaa primary nooga dhig naga masax warningka. intaas taamay naga masax. halkaan aan wax ku qoranay fahmayno. wax ka bedel xogtan alerti class baynu siinay alerti qaabku muuqanayo warning bay nooga dhig. save kare. winoo bedelay back to list. back to list direct mesh wax ka soo akhrisanay index file aynu ka bedelno. waxaanu ka dhigi doonaa keeni liiskaynu hayay oo ah list. inoo save kare. iminka aynu eegno dib u noqono refresh back to list already wina keenaya. delete kana inoo tag isna aynu ka bedelno stylekiisa wax. kan hoose back to list ka bedeli doonaa. kaas waa file nameki list inuu ina geeyo marka la taabto badhankaas oo ku dhex jira folderka la yiraahdo home ama controllerka home la yiraahdo. waxaynu dhiibi doonaa classkii. sidii kuwii hore kala ahaaba isna aynu dhiibano sidoo ay kaan lahaa b10 primary oo bluega. ka default kana ka bedelo danger casaan ka dhig si looga digtoonaado. kana kala sino ku dhima show ma hubtaa inaad delete garaysid kan. alerti danger bay nooga dhig وعسانا استمعنا نجمسه. isna waynu qabanaya insha Allah back to list wayna keenay imika. footerka aynu bedelno website kan magaciisa aynu ka dhigno. waxay tagana layout ka I think solution explorer ka view watay soo muujinaysa haduu ka qarsoomo layout waad ku dhufanaysaa. ASP.NET application waa footerka dhexdiisa xaggaas ku qoranaysaa already waxaad doonaysid ama projectkaaga magaciisa. inagu imika waxaan ku qoran doonaa welcome to Samtech company. inoo refresh kare. wuu ka soo baxay waka home kana aynu wax kala bedelno. home kaynu tagnay kusoo dhawow marka hore ka tagnay class aynu siino alerti waxaynu nooga dhigtay isaga success. inoo save kare. naagna soo ekaaday. waxaynu ku darsan doonaa isna details. imika waxaynu shaqeynaya update iyo delete details kana ku darsano oo marba kaynu joogno information ka soo saari doona. details string id kilo ku dhigtay id yani ku garanayo. variable baynu dhiibi doonaa. waxaad ka dhigtaa det meesha ka soo akhrisanayo keeni hore inuu ahaa diyaarin marka hore noo sameysana method keeni aan ku hore noo soo isticmaalnay baynu ka noo isticmaalayna inuu wax ku raadinayo id. return viewga dhexdiisa waxaan gashanaa det-da aynu ka tagno soo ku soo baxaysa inuu aragno inoo bildi kare. haddana dhex galin carqalad imanaysa inuu eegina.
Okay. xagga ID-ga ayaan ka bedelno. ID baan siinaynaa inoo save gare. aynu tagnay iminka liiskeeni. Okay, details ku dhufanaynaa. already xogtii ma soo akhrin, waa variable kaynu ka tagnay inuu dhexgalay iminka. build inoogu samee. Okay, iminka eegno soo akhrinaya. Okay, waa kaa soo akhriyay. back to list kasan class ka bedeli doona. horta meeshuu aadayo ka bedel home. directory ka soo akhrisanayna waa home. okay, class kiina aynu dhigno new. equal btn primary nooga dhig. okay, soo xidh calaamadaha inoo save gare. okay, aynu bedelno details kaas uu eegyahay. korintayna astaamo inaga saar. detailsna faahfaahin inoogu bixi. save gare, refresh gare, ka faahfaahin ninka caadi bay noogu shaqeynaysaa. waa inoo yaa cashirka kan xiga. wixii faahfaahin waxaa nooga tartaan samtech22@gmail.com insha allah.